maantay sida aad ka maqlayseen markii aad koofiyadaha iska bixinayseen oo laydinkugu heesaayay maanta waa maalin weyna maanta waa maalin weyn idinkana maalin weyn bay idin tahay Soomaaliyana maalin weyn bay tahay maanta waa maalin weyn sababtoo ah qaar idin kamida waxa u bilowday dariiq cusub iyo taariikh cusub oo ay qori doonaan kuwa kale oo halkan fadhiya waxay u jeedaan iyaguna in uu muuqdo hiigsigoodii oo idinku tusaale u tihiin ay raacaan sababtoo ah adduunyadu waa tusaalahaas iyo qoraysu dhiib marka maanta waxaan rabaa kuwiinan qalin jabiyey oo aan rajaynayo sida uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay inay waxbarashadooda sii wataan waxaan maanta rabaa inaan idinkala hadlo halkan weliba waa maalin aad u qurux badan sababtoo ah dadka halkan fadhiya gabdhaha iyo wiilashu waa isu dheelitirayeen haddii aananba gabdhuhu badnayn waa rajada cusub ee dalka Soomaaliya kuwiinan faraxsan iyo kuwiinan farxaddu ay ka horeyso waxaan rabaa inaan idinkala hadlo 3 qodob oo kooban kaliya maadaama aad soo qalin jibiseen dunin noocee ah ayaad u imaanaysaan oo la falgelaysaan qodobka labaad maadaama aad qalin jibiseen dal noocee ah ayaad haysataan oo la falgelaysaan oo idinka rabaa inaad wax u qabataan iyo tan saddexaad shahaadada maanta aad qaadatay macna noocee ah ayay ku leedahay tan koowaad waxaad maanta u soo qalin jibiseen oo aad u soo baxdeen wad adduunyo uu ku jiro isbedel aad u xoog badan adduunyo isbedelaysa siday la isu maamuli jiray sida awoodeedu ahayd adduunyo dhaqaalaheedii uu dhinac u soo badanayo adduunyo 50 sano markii la gaaro ama 30 sano la gaaro dadku hadda siday u kala badan yihiin ay u kala badnaan doonaan si kala duwan adduunyo aan la noolaan karin haddaana dunida la noolayn adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen dad iyo mashiino ay ku tartamayaan shaqooyin adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen khayraadka yaalla aanu dalka ku filnayn si qofku u dhergo ay tahay inuu qof gaajoodo adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen qofba qofku ka aqoon badan yahay inuu ka fursad badan yahay adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen dalba dalku ka siyaasad badan yahay in dadkiisu ka fursad badan yihiin macnaheedu waxay tahay adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen u eg sidan aroortii marka ay xooluhu foofaan haddii aad tahay neef ari ah ama geela ama neef xoolaha ama haddaad tahay libaax neefkaasi waa inuu ka fikiraa inuu orod ku filan leeyahay si aan loo cunin libaaxaasina waa inuu leeyahay orod ku dhow xoolaha kan uga orodka yar macnaheedu waxay tahay ama libaax ahaw ama wax kale ahaw qoraxdu markay soo baxdo waa inaad orod bilowdaa haddaan si kooban idinkugu sheega marka waxaad u soo baxdeen si aad u noolaataan qoysaskiina u quudisaan dalkiina wax ugu qabataan mustaqbal aad u yeelataan waxaad u soo qalin jibiseen adduunyo macnaheedu wax ay tahay in marka ay qoraxdu soo baxdo aan lagaa orod badin haddii lagaa orod badiyana lagu dardari doono idinkoo taa maskaxda ku haya marka duni sidaa u sawiran teknolojiyadeedu isbedelayso aqoonteedu ay sii hormarayso wadani aanu noolaan karin isagoon dunida kale la qabsan lagu tartamayo khayraadka adiga dalkaada yaalla ayaad idinku maantay waxaad u tihiin subax cusub adduunyadaasoo sidaasa ayaa idinku waxa aad ardaydii mustaqbalka u tihiin ama madaxdii mustaqbalka kuwii wax u qaban lahay dalku dhawaad 30 sano dhaawacna
laakiin hadda bilaabay inuu dabiibmo bilaabay inuu dariiq saxa qabsado laakiin u baahan dhakhaatiir isu beddesho habeen iyo maalin saacad iyo second walba adduunyada aan idiin sheegayay oo aan annagu nahay kuwa ugu orodka yar oo macnaheedu ay tahay marka libaaxu uuna soo bursado aan nahay neefka ugu dambeeya oo u leh fursad in la cuno ayaa laydinka rabaa idinku inaad nageysaan meesha ugu horreysa waxaad waxu soo barateen dal ku dhowaad 30 sano burbursanaa dal qabyaaladdu ay ka xoog badneed qarannimada dal musuq maasuqu uu ka noqday nolol caadiya dal qof markuu dhinto la yidhaahdo qof baa naga dhintay laakiin intaa in ka weynan la fiirin dal dadkiisu aanay fahmin sanadadii lasoo dhaafay dagaalka adduunyada ka dhexeeya dhexdooda si loo noolaado maadaama si qof u dhergo dunidu maanta ay tahay waa inuu qof gaajooda idinku waxaad tihiin marka qoladii dalkaasaan idiin sheegay oo nasiib wanaag leh khayraadka ugu badan dalalka Afrika iyo dalal badan oo dunida ah oo nasiib wanaag ku yaalla Afrika oo 2050 laga yaabo inay ka badnaato Yurub oo loo yahay in meesha keliya oo la rabo dhaqaaluhu inuu ka kobco uu yahay Afrikana geeska Afrikana Soomaaliya ay ugu barwaaqo badan tahay ciddii wax u ilaalin lahayd waa idinka ciddii libaaxa noqon lahayd waa idinka waxaad markaa maanta wax u soo barateen oo laydinka rabaa inaad noqotaan kuwii dalka samata bixin lahaa kuwa qabyaaladda ku bedeli lahaa qarannimada kuwa Soomaaliya ka dhigi lahaa meelaan laga cararin ee loo soo cararo kuwa soo celin lahaa sharaftii karaamada ummadda Soomaaliyeed kuwa siin lahaa gabdhaheena iyo wiilasheenna fursad isku mid ah waayo waa inaan xoogga dalkeen oo dhan ka wada faa'iideysanaa qodobka saddexaad waxa ay tahay shahaadadan maxaad rabtaa inay ku noqoto laba dariiq ay leedahay inaad subaxi soo kacdo oo aad carartid qotoliyoonkana ku raadsatid iyo inaad fahamto shahaadada iyo adiguba inaad xambaarsan tihiin macno ka weyn macnaha raadiska qotoliyonka maanta waa inaad bilowdaa inaad fikirtaa 20 sano kadib dalkaada iyo dunida maxaad ku soo kordhisay ma waxaad u noolaanaysaa sida qof caadi ah oo subaxi shaqo taga 5 soo noqda seexda mise waxaad u noolaanaysaa qof ku nool dalaan caadi ahayn oo laga rabo xal aan caadi ahayn go'aankaas idinku idin yaalla waxaan aaminsanahay marka fursadda ummadda Soomaaliyeed maantay waxay ku xiran tahay caawa gurihiina markaad tagtaan sidaa u fikirtaan caawa dariiqa mustaqbalka waad jeexataan ama Puntland joog ama Jubbaland joog ama Xamar joog marka ugu dambaysa waxaad tihiin kulligiin dad Soomaaliyeed marka ugu dambaysa waxaan halkan isugu nimid oo wada ogolnahay waa heesta calanka waa Soomaalinimada waa wajigeena oo isgaranaya maanta markaa fursaddeena guusha mustaqbalku waxa ay ku jirtaa inaad u fikirtaan si fog ama si dhow waxaan rajaynayaa inaad u fikirtaan si fog waxaan rajaynayaa inaad u fikirtaan siday u fikiraan dadka aad la tartamaysaan waxaan rajaynayaa inaad waxbarashadiina sii wadataan meel walba oo aad ka gaari kartaan anigu waxaan aaminsanahay oo aanan qarin mustaqbal badda Soomaaliyeed inuu dhalinyarada yahay dalka idinku inaad leedihiin madaxweyne ku-xigeenka halkan soo istaagay iyo aniga iyo kuwa ila midka ah ka qaata awoodda laakiin u soo diyaar garooba ilaahay shahaadada idinkaga dhigo tii aad ku nagaan lahaydeen tii dalka Soomaaliya hagaajin lahayd tii aad qabyaaladda dalka uga tirtiri lahaydeen aad baan raali idinka ahay waa mahadsantihiin